السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دلهانتين بداودياش هذا قيمها يقدرين تمضن ميل والبود دافع عالم كتشوكتان هالكن وتلفزيون كعالمي ديجان كسوماليدا وردك دقوا هذا النسوق جاري قلها كابنيت كديجان كسوماليدا وشيء سوي مدايا وحى وقلوه أياد الله فقرين أريم مهمة الله حريرة نبت جليدة عدالة السنان تي الديمقراطية كأنا قاضي ديجان كسوماليدا وأنا قلوه سب على هوسته وبحريقين إن عن قرقرة لقى جلين إن شخصيات كدم بيجا كجل شعب كديجان كلهور كانوا شرعي يبغى الدستور كالله مريو كلن كان يقولوا وحى وسكولا قاطين دبوا إيجس دبوا هبين أي سعتان بلارن لو سمين دونا قاب بسميت كالدولة من هير ديجان هير قبل هير مابل مجالو إلا إيو هير دجمو دك كلنا وحى حكومة الديجان كالصومالي وشيكتين عن مرنبا لو دو قادن إن عد كستو يسكت ضيدا إن يويقضوا من نمد ومد الصوماليات لما رهان تانا يسكت ضيدا إن يدبوا على سرجة وين شعب كالديجان كو أيو قضان إن يهلان عدالة ديمقراطية حرية وارطاء وعلى جبدي كلن كان يكحل اللحن كيس القوامة كسب بحي وزير كعصب حفيظ كحرير كارمة الدولة ديجان كالصومالية مدن عبد الله محمد موليد كابنيغ wuxuu ka hadlay qodobo muhiim ah oo ku saabsan xaaladda deegaanka waxa jiro ogtahay inuu jiro isbedel balaaran oo dalka ka hara qaaday iyo deegaanka uu ka socdo marka waxa jirta shakhsiyaad hada ka hor ha dambiilayaal oo dadkii maartay Oxford dhibaatooyinkii dhacay iyo dambiyadii soo dhacay dad ka qayb qaatay in hadana wali la hada carqaladii ay sii wadaan oo maartay dhibaatooyinkii sii wadaan dadkii nooca ahaa marka inaan marnaba cidnaba aan lagala maartay shakhsina aan lagala xaajoonin sidii loo hulgeyn lahaa sharciga dadkaas iyadoo la raacayo nidaam sharci ah oo baaritaanadii la sameeyay hay'adaha federaalku ay sameeyeen iyo wixii oo dhan la soo qoray iyo xeer ilaalinta federaalku ay keentay in shakhsiyaadka talaabadoodii laga qaadi doono iyadoon cidna aan maartay loola jeedin oo loo beegsanin mid kale waxa laga hadlay oo kale in hadii ay jiraan muwaaqirkooda ogtaa ilaa heer degmo la soo dhisay heer deegaan marka la dhisay heer degmooyin baa la soo dhisay gobolada la soo dhisay haddii xitaa ay jiraan goldolole ay jiraan shakhsiyaad la sheegay ay jiraan kuwa laftigooda si loo sixlaa kabineegu ansixiyadan in ma taqaana sixitaan muwaaqirka dib la sameeyay iyadana oo maartay la waxeeyo waxa kale oo kabineegu eegay shakhsiyaad waxa jiray iyaguna aan marnaba ahayn aan ma taqaana ka soo qayb qaadan kalfadhiyadii kabineedka nimanaynin marna aan maartay shaqadii dawladda iyo shacabka loo hayay aan qabanin kuwaana ma taqaana talaabooyin laga qaado oo iyagana ma taqaana waxa weey shakhsi kaste ومسؤولية سارنتها وحي مسؤولية كسارنتها ومدة حزب الديمقراطي الشعب الصومالي إثيوبيا وحسكله دمان شعب الصومالي ده شعب الصومالي ما دام مشكلة هي حبناها كابن يجي تشوجا يحبناها مامول كتشوجا يحبناها هير دقمة تشوجا الشعب كله مانتود وحيجي أي خصيصة حزب الديمقراطي الشعب الصومالي وحزب كلية بتبادين كربا ليه therefore حكومة دونه وحال ربعنا يدو طاقة كدوليسة إن هرماركي ينبت جليدي يعدالي ذات كلا جالسية يلو بهاية تاسا marka intay lagu shaqeeyo wax kasta oo lagu shaqeynayaan inuu noqdo wax sharciga lagu sal looga dhigay oo dastuurka deegaanka iyo ka dalka iyadoo la cuskanayo in maartay la dhaqan galiyaa tahay qofka horta dambiile ah isagu ee dambi galay wax weey sharciga ka talaabo qaadaya maadaama sharcigu uu ka talaabo qaadayo qofka oo sharciyan talaabadiisa laga qaadayso laakiin arinta xisbiga wali lama galin shirweyni xisbiga uu soo socda nidaam baana jira la mari doono nidaamka iyadoo la raacayo qofku inuu dambiilahayn oo ummadiisa u danqanayo inuu shacabkiisa horumarkeeda jecel yahay ayaa waxyaalo badan baa la eegi doonaa markaas lagu saleyn doonaa laakiin qofkii isagu sharci iyan markii hore ma taqaanaa dhibaato geystay ee dhibaateysna talaabadeeda iyada laga qaadanaya qofka waxa in badan ku jirta iyaduna ma taqaanaa arin ah dadkaas soo noqonaya iyo dad baa la soo celinaya waxaas jirta waxaan marnaba ayna dawladda deegaanka Soomaalida ayna gorgortan ka galin cid kaste oo bulshada dhibaataysay oo sharci darro maartay sameeysay oo dib soo gaarsiisay bulshada in ma taqaanaa aan sharciga in la hor keeno marna aan cidna gortortan laga gali doonin marka ama baro bulshada lagu soo qoro ama wixii doonaa la soo qoro hadda waxa weey cid intay soo wajahday dawladda dagaal la hor iman karaysa ma jirto waa baraha bulshada kaliya kaasna waxa ma sameyn karo bulshadeenu 85% waa xoolo dhaqato dadka xoolo dhaqatada waxay u baahan biyo cabaan oo nadiif u baahan horumar buu caafimaad buu baahan waxbarasho u baahan muhiimadda dawladdu waxay culays ka saaraysaa in dadka loo adeego in baraha bulshada lagu mashquulo kuma waxa isma laakiin qof kasta oo sharci ummadda dhibaato u geystay sharciga la hor keeni doona iyadoo la raacayo nidaamka sharcigu u dhigayo